والسلام انتين أصحابتي دقاليق أهم ميل كستا جوجتين war farxad leh oo dunida waqti xaadirkan oo loo baahan yahay oo soo kordhayo waxaa lagu shiray guriga uu degan yahay Donald Trump ee loo yaqaano Mar-a-Lago ee xeebta ku yaalo waxaana lagaga tashanayay qaabkii dunida hubanti la'aanta ka jirto lagu soo gabagabayn lahaa dagaalka saddexaadna lagu baajin lahaa waxaa la dejiyay biis balaanka ama qorshaha nabadda ee lagu dhameyn lahaa konfliktiyada adduunyada waqti xaadirkan ka jiro ha ahaato midka bariga dhexe ama ha ahaato midka waqti xaadirkan halista dunida geliyay ee hadalhaynta badan hayo ee u dhexeeyo Ukraine iyo Ruushka. haddaba qorshaha ee elidka Mareykanka oo Elon Musk iyo rag badan oo elidka Mareykanka ku jiro saraakiil sare oo NATO ah iyo siyaasiyiin waaweyn oo Mareykan ah ay ka qayb galayeen. biis balaankan ayaa waxaa la leeyahay sida saxaafadda soo gudbinayso in uu yahay Ukraine inay ka tanaasusho ku biirida NATO, sidoo kale Ukrainiyiinta waxa ay ka tanaasuli doonaan dhulka waqti xaadirkan oo Ruushka xoog ku haysto oo ciidamadiisana ay joogaan. haddaba waxaa soo haray midka bariga dhexe Donald Trump wuxuu leeyahay markaan aqalka cad imaado waa in uu dagaalkaas joogsada oo qof dambe oo bariga dhexe ama Falastiiniyiin ah oo la dili doono ma jirto. haddaba qaabka uu ku xaalin doono ayaa waxa ay ka taagan tahay calaamad su'aal. wuxuu aqoonsan doonaa Falastiiniyiinta dhulkooda mise waxa uu rabaa in Falastiin iyo Israa'iiliyiinta ay isku noqdaan hal wadan. taasi waa arrin furan, qaabkii lagu xalin lahaana ay u baahan tahay